rugta xarunta qaybta 12aad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa maanta laga dhagax dhigay magaalada Burco waxaana xafladii lagu dhagax dhigay rugta xarunta qaybta 12aad ka soo qayb galay taliyaha ciidanka militariga ee qaybta 12aad taliyaha aagga bari iyo barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle sare Axmed Hurre Haariye oo ugu horeyntii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay faa'iidada ay xaruntani ku soo kordhinayso ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu madaxweynaha iyo taliyaha guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku amaanay xarunta cusub ee loo dhagax dhigay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhagax dhiga rugta saraakiisha dib loogu ballaarinayo rugta saraakiisha markii hore taariikhiin haddii dib ugu noqono waxa la dhisay xilligii Ingiriiska dawladihii kala dambeeyay midib waxbay ku dartay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliland ama Jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda imika jirta ee madaxda ka yahay Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ah aabahay waxqabadkii horumarka Soomaaliland intii ay jirtay shir koraha waa la balaariyay waxaana taliyadeeda iyo lahaa maalgashigeedaba taliyaha guud ee ciidanka qaranka sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani tan maanta fakirkeedu isaga ayuu ka timi sidaa daraadeed maanta halkan waxa lagu dhagax dhigi doonaa balaarinta rugta saraakiisha dhismo hor lama aha oo hore saraakiishu qayb ahaad u dhisnayd laakiin dib ayaa loo balaarin doonaa abanduulaha aagga bari ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle sare Maxamed Abakor ayaa soo dhaweeyay xaruntan cusub ee loo dhagax dhigay ciidanka militariga Soomaaliland waxa maanta soo kala aanu celinayaa taliyaha guud ee ciidamada qaranka lahaa fikradda ballaarinta iyo wax ka qabashada mugale ee rugta saraakiisha ee maxaa dhahdaa aagga bari maanta aynu u joogno dhagax dhigii hool weyn oo qaadaya ilaa 500 oo askari mar labaad waxay ka turjumaysaa waxqabadka dawladda maanta jirta ee uu hogaaminayo madaxweynaheena qaaliga Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo maxaa dhahay ku aastaysan dawladda waxqabadka iyo horumarinta dalka ugu dambeyntiina barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in maanta bogcadan barakaysan laga dhagax dhigo magaalada Burco waxaanu ammaan iyo bogaadin u soo jeediyay saraakiisha sarsare ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa farxada bogcadan barakaysan ee maanta taaganahay ee ku timi horumarka ciidankeenu gaadhay ee jananka uu horseedka ugu yahay madaxda gobolka iyo aagana ay u yihiin Axmed Hurre Maxamed Abakor aynu maanta halkan ku dhagax dhigayno hoolkii ugu ballaarnaa ee gobolka Togdheer laga sameeyo oo ciidanka qaranku leeyahay qarankuna wada leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan la hilmaami karin oo la ilaawi karin dhiirashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku dhiiraday howlaha horumarineed ee dalka uu ka furay shabakada caalamiga